ana go'aansado hooya ila gala tashatay maalin la arko qofku marka uu horta khayr sheegayo way ka duwan tahay marka uu kolley qabaa'ilaadka iyo meelaha uu dadka caayo adduunyada kolley hal shay baan ka egtahay oo anadu jecelahay hooya maalin la arko waxay jabaad anigu khuruujadan iska baxaayo dee maskiinkaasaan iska ahay magaalooyinkaasaan isku wada baxaa arrintii way qabyaaladayeen niman baa waxay ka dhigeen majeerteen iyo hoogaa dhulbahante iyo hawlahan ay u kala saareeno kuwa gaalkacyo jooga iyo kuwa garawo joogo halkan hanjabaada iyo hawlahaas adigu dowladii afaaray geliyeen marka waxaan is iri farahaba kala bax oo faraha inaad ka qaado oo aad iska aamusto ayaa ku wanaagsan marka saasaan kula go'aansaday haddii xitaa hooyo ay ku tiri waa la yaqaanaa dadka cayda waalidka ka shaqeeya marka adigu waxaad heli kartaa inaad dacwada islaamka fidiso adoo ayagaba soo hadal qaadaynba marka xaggeen iska qadaa qofba soo hadal qaaday oo reaction aadan bixin oo magacooda iyo anfaalahooda gelin oo dadka iyo dhalinyarada aad kugu xirir aad martaqaan gaarsiisa diinta saa meeshan waa aalad social media iyo tiktok leedoo aad u dheeraysa haddaad adiga arrimahooda gelin hooyana markaasi dee saamayn kuma leh haddaad qof soo hadal qaaday tabliiq welig fi sabiilillah khayr maxaa jaara nabiga iyo ilaaha iyo diinta caayo see uga hadlalnaa sidee qofku hadduu ilaaha iyo nebiga diinta aflagaadeeyo sidee looga hadli karaya ilan ayagu wejiyadooda lama dhuumanayaan magacyadooda lama dhuumanayaan maa baalu qoomin xitaa ku noqon mayso ilan dadku ilaah iyo nebiyada ma wada caayaan oo khadka intay soo wada fadhiistaan ilaah iyo nebiga ma wada aflagaadeynayaan ciddii aflagaadaysaa hadda yuusarkayga waa markii saddexaada la xidho ogaa ciyaal agoon oo aan ka haya baa jiro aan ka meel markasta ku xareeyayoo qarashkoodii iyo waxbarashadoodii aan ku bixiyo aflagaado kastaa kaasoo gaadho waa tuugsanaysaa iyo dawarsi waxay doonaa hadhaan anigu waxa dheg uma dhigo hawaday hadda ka saareen bahalka waxaa kaloo jirta daahir kolle khadka hadda waad ku jirtaa baan filayaa waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka muslimiinta ku daawanaya aan idin tuso bahalkan waa generator kanna waxaa weeye waa bahalka meydka lagu qodo bahalkaas ayaan ka ururinaya hadda isbuucan markii laga saaray gaadhigaasina waa gaadhigii meydka lagu qaadayey waxaan arkay waan u malaynayaa inaad muuqaalka daawatay ay ku aflagaadeynayaan ay leeyihiin waa tuugsada waxaa ku xidhan wallahi waa kafan oo shalay baa lagu qaaday meydka ugu dambeeyey soo ma aragtid naxashadii salaajigeeda dadku marka waalidkii iyo xoogaa dadkii waalidiinta waxay liqsiiyeen oo kale anigu ilaa 160 waalidan ardaydooda haya oo hal mar shir wada gala maalin kasta markay arkaan gabadh baa waxay tiraahdaa ciyaal baa xitaa malcaamada darteeda guuxo loogala baxayo gabadh baa tiri intay soo duubtay muuqaal gabadh 4 jir oo agoona wuu iga kufsaday oo ninkaasi iga kufsaday marka islaamaha laftarkoodu way shakeeyaan marka waxaan is iri mar haddii ubadaad soo saarayso ubadka aad waxbarashadoodii waxbarayso markasta inay aflagaado iyo caya ay maqlaan waa shay aad u liitee iska badaabo meelaha kale khadadkaaga iska soo gal marka loo soo duceeyo insha allah horta mukhtaaro waxaad ka shaqaynayso tabliiqa daacaysana waa quruj fi sabiilillah khayr bixaaja qofka u socdana ma cabsado horta ma fahamta oo cid wax kaa qaadi karta male haddii adduunkana rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa mataqaanaa yaa la caayiyo been laga sheegayey inta lagu faafinayey marka nabi yuusuf oo waxaad ogid lagu samaynayey oo lalahaa aniga saa igu sameeyey oo aad ogtahay waxa kusoo dega ayado quraana marka waxaa weeye yaa adduunka markaad joogto maalin kasta waa lagu haysana waxaa lagu leeyahay waxaanuu sameeyey dhibkaanuu geystay sidaanuu sameeyey waa lagu dacaydayna marka yakhay markaa taa qof addoon oo ilaahay dadkii u adeegaya oo mataqaanaa adoo hooyo taxgilinaya haddana adeegii aad haysay muhiimka ah yakhay shaqa ku malaha